بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله تعالى waxaynu ka hadli doonaa aliimaanu birusuli wa wadaa'ifihi, rususha ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala iyo shaqooyinkooda, shaqada loo soo diray. diimaha bini aadamku waa adduunka korkiisa ku haystaa waa laba nooc. waa qolo rumaysan ilaahay caabudayaan markaasi inuu makhluuqaadkiisa ku dhex jiro, ama ha yidhaahdaan wuu ku soo degay, ama waaba isagii, ama waxay doonayaan ha sheegaan. oo kuwa sanamada caabudaya wuu ogiyey dhagaxa kan iyo inaanu dee ilaah ahayn, laakiin wuxuu rumaysan yahay waxbaa ku dhex jira. ama se professorkan saca caabudaya wuu ogiyey sac inuu yahay, laakiin wax kale ayuu rumaysan yahay markaas. ama kuwan ciise caabudaya le ciisa ilaaha oo ina ilaaha, qaybo waa kuwaasi waa diimaha shirkiga ku salaysan. diimaha saxda ee islaamnimadu ay tilmaamaysaana waa ilaahay subxaanahu wa tacaala basharka khalqiga u abuuray inuu qof ka mida ka dhex doorto oo inta kale fariinta u faro. mid ka mida bini aadamka, in ana ilaa basharun mithlukum, rasuulku marka waa qof bini aadama oo ilaahay dadka ka dhex doortay oo dabeetana risaaladii loo soo dhiibay. risaaladu markaa wax caqli badni ku yimaada ama doorasho ama caynkana maaha, ee waa ikhtiyaar min allahi subxaanahu wa tacaala. allahu yastafi min almalaa'ikati rusula wa min annaasi in allaha samiicun basiir. ولقد اصطفيناه في الدنيا قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. نصوص تصور للوحي تلمام سيد إلهي الدكتور الله أعلم حيث يجعل رسالته. إلهي سجاوك عدة الرسالة يسوسوا بيبي. rasuulku markaa waxaan leenahay waa qof bini aadama oo ilaahay doortay subxaanahu wa tacaala, oo weliba nusuustu say u badan tahay magaalo laga doorto. rasuul reer miyiga lama sheegin. wakaayin min qaryatin hiya ashaddu quwatan min qaryatika alatii akhrajatka litundira umma alqura waman xawlaha. magaalooyin baa rususha laga soo saaraa. diimaha munxarifkii in qof bini aadama rasuul laga dhigo ayay diidan yihiin. oo ambiyada marka ilaahay ka warramayo, aw cajibtum an jaa'akum dikru min rabbikum calaa rajulin minkum liyundirakum walitataquu walacalakum turxamuun. dalika biannahu kanat ta'tiihim rusuluhum bilbayinaati faqaaluu abasharun yahdunana fakafaruu. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa markaa rusushu inay tahay bini aadama la soo diray, risaaladna loo soo dhiibay, rumayntooduna inay min usuuli diin tahay. in ilaahay subxaanahu wa tacaala rusushiisaasi la rumeeyo. quluu aamanna billah wama unzila ilayna wama unzila ilaa ibraahima waismaaciila waisxaaqa ila aakhiri ilaaya. mid ka mida oo la beeniyaana waxay la mid tahay dhammaantoodoo la beeniyey. sidaa awgeed baa ilaahay qoom kasta oo rasuul beeniyey mu odhan rasuul bay beeniyeen quray. wuxuu leeyahay kadabat qowmu nuuxin ilmursaliin, kadabat caadun ilmursaliin, kadabat thamuudun ilmursaliin, thamuudun ilmursaliin. ilaahay subxaanahu wa tacaala kadabat thamuud ilmursaliin. ilaahay wuxuu tilmaamayaa qolo walba waxaa la leeyahay rusushii bay beeniyeen, rasuul un baana u yimi ay beeniyeen. waxaa isku mida markaa inaad mid beenisay iyo inaad lama beenisay iyo inaad dhammaantood beenisa waa isku xukun. in aladiina yakfuruuna billahi wa rusulih
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا بينهم وصاء هو قال كدفت أبا ربي كتل ما سبحانه وتعالى رسول شاسي أما مقع رسوله إلا صدح بغلية دوري لحد الجرب قرآن كقصان ونغضي نبي يرقائنا إلا شنية تضباطا اسكو صدودو وإرقو إلهي حقي سكتمي آخرنا ولين ويديني يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين على تقيام السؤال اللي سويديني وحكمله إن لا أران دونا رسوشي محاوب جوابتين إلهي سبحانه وتعالى حكمتي سمركا وحي كنتكتي بني آدم عدنا بين عذاب إلا ين الرسول صادر مويان ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إليه ومدنا مع عذابنا إلا إيا الرسول الله صادر مويان ومن قدوني دا تشوغي صومر يوردنا الرسول والله دري ومن أمة إلا خلف فيها نذير أي إلهي كنت المامي نبينا عليه الصلاة والسلام حديث لغي سأرورين وكت المامي بغل يدور يلواتن كن النبي إلا صادري يسدح بغل يدور يطبن رسول شاسي وكلا درجة الرئيسة تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض رسول مقال الله صادري رسول قوم الله صادري يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وآخر الرسل والدنيا دور الله صادري وحي إلهي قرآن في أنه قلت الماما يا درست الرسول كالله ينو صادري إن النعمة هي من نعم الله سبحانه وتعالى آدمه إنه اللوم لها لكن وحو صحق النغضي إن يتهي الرسول شاسية الرسائل إن إرقاداس الله كتمي يوحي السيدين isagoo ilaahay inoo manno sheeganaya markaa ama galladda inoo sheegay wuxuu leeyahy laqad manna allahu cala almu'miniina id bacatha fiihim rasuula min anfusihim ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku galladaystay dadka mu'miniinta korkooda markuu usoo diray rasuul iyaga ka mida bini aadama oo ay afgaranayaan oo ilaahay aayadkiisa ku akhrinaya taskiyeynaya tarbiyeynaya كتابك هي السنة برية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسول هدبا هدي أي تهي إلا صادري إلهي إنك السعودان رسالة دي إلهي نسيدان واجب إنك تهي إلا رمائيو آخر السؤال اللي سويدين دونا إنك كم التهي هذا هو جواب الرسول إلهي دين صادري وحين سويدين الرسول كمركا شقدا وقبنا يوامحي يلا رواينا إن الرومي سنو وكقد ينو وكنا قنو وقدوة نوويه وحكوات والبلاغ المبين إلهي سبحانه وتعالى الرسالة دي سيسعد إنه دك وسوق أرسيه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة رسالة قارسين تيدو وقضية باهن جيسينيمو هي عبس الآن ولذلك والله إلى أنبياء دي الرسول ودتك وجيسيسن خلق دن أو رميسن ووح إلهي كسهر جدا رميسن ما قف كنا لو سوديري قف كسل الربيدات كنا إنه كهرتك وحفظوا مركبها إن ummaddan nabiyullaahi maxamed keligii baa dunida oo dhan ka hor yimid isagoo qura ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala oon cid kale la soconin waa geesinimo halkii u dambaysay oo qof si gaara ilaahay u doortay inuu risaalada qaadi karo dabeetana waxaa la faray dunida oo dhan inuu isagu ka hortago risaalada gaadhsiiyo aladiina yuballiquuna risaalaati illaah wayakhshawnahu walaa yakhshawna axada ila allah إلهي كوا وحكوت المامين ينكوا إلهي الرسالات كي سددك قارسينيا وأن عدك لك عبصنا إن ألمه يانا سبحانه وتعالى إن هذا همرنين ومصالح كلا إيجين ووح كلا إيجين الرسالة دا سيئة جيسا وهو حالوي رسوشنا كاسال وصدر
اتل ما أوحي إليك من الكتاب كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا تلاوة الكتاب أي تبليغ الكتاب ويا المركا شغل كوادا رسول كوينو ينسوق قارسيو الرسالة ده ولبا وحي مدمدو إنا قلنا إنو شرحو إنو بياميو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنا قصد النبي إلهي إلي نبي محمد رسالة عليه الصلاة والسلام لتبين للناس ضدك إن أدو عضيسه وسقوا النقطة مركها معلن كي وحلالي وحي مدمدو كتشرك الساري سيدا وقال وحي رسولك كيما دور مواحد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إنك نوحى لينا فرق وحكستو والله ما دمك أين نقاضنا وما آتاكم الرسول فخذوه وحلال يوحي النبي ويجنسيه بالليل قاطع وحبها كتجينا وحلينا فري وحكسته إن نسجك قد يرنو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قد يشفي عن بيدكم سجى الرسوشة وحلينا قدي خلاف كود إن ناركم مضرنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم عصيان كود النار لقليه أنبياء عصيان كود ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وحلينا شجع إلهي جعل كيسا الديبا عد أي جرتو شجر إلهي جعل كيسو إن يتهيئ النبي محمد عليه الصلاة والسلام من الراعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آخر وحي إلهي نوشيغي عدي وضدك ويعطى إلى اللميسو أما إني فرت اللحدك غنيني دونت يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وما لنته ظالمه قعنت فرت لنعك غنيني دونه isagoo leh balmaan nabigi calayhi salaatu wasalaam dariiqiisii balmaan qaato yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaari yaquuluuna yaa laytanaa atacna allaha wa atacna arasuula nebi walibana markuu yimi wuxuu lahaa fattaqu llaha wa atiicuun ya aqbala ilaahay ka cabsadoo yeela waxaanu nebigu tilmaamay لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يعني لا أركن بقى النبي قلت الماما يا قف سريرتي سكجتشيفا وورك النبي قوي ما دام النهي يسوي ما دو ودب تنديده وإلى هذا ما وجدنا في كتاب الله تبع قرآنكم أنا نقول راعي قرآن النبي جنب السيدي عليه الصلاة والسلام وحو كفرون المكاوينات راعي إذا waxaan leenahay shaqada koowaad ee nabigu waa tabliiq waa inuu diinta ina gaarsiiyo shaqada labaad bay yidhaahdaan culimadu uu nabigu wadaa waxa weeyaan dadkii iyo ilaahay inuu isku xidho khalqigoo dhan inuu rabbigood baro oo ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidhmaan dacwada macnaheedoo dhami waa intaa marka koowaad kaasaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya ambiyadu inay si kasta ugu dadaalaysay ونبي الله نوح سقال بقولي كنتم صندوق ويردي هبين يا مالين بقولي وحبا شيء سر يا علم با فر يا هوس وحشيء الصالب تبني آدم هو هذيك صدور دن هو هذيك سنة وحك استباعات سقول نبي قضية ذات المام يوحي عليه الصلاة والسلام أنا نبي وحنا هاي وحديث الله البخاري ورنا يوم ملايكي أي رأي صوت صالح بحننا معناه حديثكم مسوكه بيا النبي دعوة سوحي لما تسيدين ما أدب سماع عسومة سمايي أدب تنعد أدري ويانا عدي أقبشا داعية ويري عنادي لو يري أقبلانا وسوق لي يا إلهي ما أدبديسي عدي ديدانا وكقضيصة
markaasaa waxaa la yidhi ma'dabada la isugu yeedhaya waa jannada, casuumadda lagugu yeedhaya waa janno, cidda ugu yeedhaysa dadkuna waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ciddii nebi maxamed aqbasha calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ateecay, dabeetana casuumadda ilaahay buu ka qayb gelayaa. ciddii caasidaana casuumaddaasi way seegaysaa. shaqada labaad ee ambiyadu waa altabshiir walindaar, inay dadka u bushaareeyaan. wamaa nursilu lmursaliina ilaa mubashiriina wamundiriin, inay dadka wixii wax wanaagsan sameeyana ilaahay jacaylkiisa iyo jannadiisa iyo naxariistiisa iyo nabadgelyadiisa ugu bushaareeyaan, oo dariiqaasi ay dadka u caddeeyaan. ciddii ka weecatana inay nadiir u noqdaanoo cadaab kulul oo waxguba oo daa'ima oo lagu jirayo oo wakhtigiisu dhammaanaynin inay dadka uga digaan. waana kii nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam, aniguna guntigaan idin hayaa. wuxuun baa la mid ahay sidii nin dab shiday oo xaydhaweynti iyo farash iyo waxaan xayawaankan ku daataa ay ku soo daadanayaan oo ka celinaya. idinkuna naar baa doonaysaan inaad ku daadataan, anna guntigaan idinka hayaa buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam. wuu u bushaaraynayaa iyo wuxuu ugu bushaaraynayaa ciddii raacda ee dariiqaa ilaahay qabsataa adduunkanna inay guulaysanayso, aakhirana inay guulaysanayso. man camila saalixan min dakarin aw unha wa huwa mu'minun falanuxyiyannahu xayaatan طayiba. ciddii faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa, adduunka inta lagu nooliyay aakhira qura maaha. rasuulka waxaa loo soo diray inuu inoo bushaareeyo adduunka sida badhaadhaha lagu gaadhayo oo inoo sheego. dabeetana wuxuu leeyahy ninkii camal wanaagsan sameeya rag iyo dumarba iimaanna ku daray, kaa ilaahay baa u ballan qaaday inuu nolol fiican noolaynayo. ilaahay baa wuxuu tilmaamaya faima yaatiyannakum minii huda faman itabaca hudaaya, ciddii hanuunkayga raacda falaa yadil, lumi maayo, jannada ka lumi maayo, adduunka dariiqa saxa ah ka lumi maayo, lumi maayo baa la yidhi. walaa yashqaa, kadeed mina maayo. nolosha kadeedka waxay kadeedkeeda la joogaa marka dariiqa xaqaa laga waago. ambiyadu markaa inay dadka u digaan oo u bushaareeyaan, ugu bushaareeyaan war haddaa ilaahay raacdaan waa badhaadhaysaan, haddaa ilaahay tiisa aqbashaan lumi maysaan, kadeed mina maysaan. bal وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن يقول بشاريان إلهي يبوه ساعة هدي إيماني عمل صالح الله ينجهله وجدك إنه قادنا أدوم كان إنه ينجا إنه مكان سينيو إنه قال لك أعرف بضنين. hadda gaalku way naga xoog badan yahay. sababta koowaad waa maxay? waxaynu diidayn in waddadii raacno nusaw nus, lugna waa kula jirnaa, lugna dabaddaan kala joognaa. waxaynu diidnay inaynu rusushu waxa ayna tiri qaata si dhaba u qaadanno. markaa nebiga waxaa loo soo diray inuu inoo bishaareeyo inay yidhaahdo waar haddaa qaadataan wixii ilaahay idiin sheegay, waxuu idiin ballan qaaday bushaare ah in dhulka laydin khaliif laydinka dhigayo, madax laydinka dhigayo, sidii dadkii idinku horreeyayba ilaahay madaxda ugaga dhigay, in laydin makansiinayo boos ah ku yeelanaysaan cid idin riixaynin, diintiinnii uu ilaahay raalli idinka noqday inaa hananaysaan, inaydan cabsi idinku dhici doonin oo idan cidnaba ka baqi doonin. yacni guul adduun oo dhan baad helaysaa. waa goorma? waa haddaad raacdaa yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya. cagsigeedana waxa uu rusushu u timi inay inooga digto. digniina bay inoo sheegayaan. maxay sheegaysaa? waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma. ciddii ilaahay dikrigiisa ka jeesata inuu leeyahay nolol cidhiidhiya, nolol cidhiidhiya. adduunkan inta la joogaa laga warramaya.
nolol nabaddu ku yartay, nolol lagaa xoog badan yahay, nolol lagu gumaysto, nolol gaalku kuu hanjabo, nolol dhammaanteed cidhiidhiya ayuu ku noolaan doonaa baa ilaahay yidhi. aakhirana fain acraduu faqul andartakum saaciqatan mithla saaciqati caadin wa hamuud. haddaad jeesataan waxaad uga digtaa baa ilaahay yidhi balaayo ku dhici doonta saaciqadii caad iyo hamuud ku dhacday oo kale. waxaa la yidhi ugu bushaaree waman yutic illaha warasuulahu yudkhilhu janaatin tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha wadalika alfawzu alcadiim. ilaah iyo rasuul ciddii ateecda inay jannooyin ama beerooyin helayaan webiyaaku dareerayo oo lagu waarayo. ilaahayna wuxuu uhi wadalika alfawzu alcadiim. kaasun baana alliibaanta dhabtaa. ninkii ka kale maraana waman yacsi illaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkhilhu naara. idan shaqada rususha ee ugu weyn waxaa ka mid ah altabshiir walindaar, inay inoo bushaareeyaan oo haddii aynu adduun iyo aakhiraba ilaahay adeecno labadaba inaynu ku guulaysanayno, inoo digaan oo ah haddaynu ilaahay daydno adduunkana inaan la guulaysanaynin, aakhirana inaan la guulaysanaynin. markaasay in badan rususha waxaa loo soo sheegay jannada iyo siday u eg tahay si laynoo jeclaysiiyo. qur-aanka haddaad u fiirsato calaa sururin mawduuna muttakiina calayha mutaqaabiliin yatuufu calayhim wildaanu mukhalladuuna biakwaamin wa abaariiqa wa ka'sin min maciin laa yusaddacuuna canha walaa yunzifuun wafaakihata mima yatakhayaruun walaxmi طayri mima yashtahuun waxuurin ciin kaamhaali lu'lu'i lmaknuun jazaa'an bima kaanuu yacmaluun. ilaahay wuxuu sidaa ugu balballaadhinayaa in layna dhiirigeliyo, in laynoo sheego jannada waxa yaalla wax kasta oo loo baahanya inay yaalliin. webiyaan waxa la cabbaa adduunka waa koobab iyo wax kili ku jira iyo jeeg wax ku jira, inuu wax waloo la cabbaaba webi yahay. shaqaale inuu joogo, beera inay leeday, dhib inaan la arkaynin, wax kasta uu insaanku u baahdo meesha uu ka heli karaa inay halkaa tahay. markaasaa ilaahay midhmidh u kala dhiga. qur-aan badan baa lagu tilmaamayaa jannadaas uun la sharxay. qur-aan badan oo kalena cadaab buu sharxaya, laynoo digayo. wa asxaabu shimaali ma asxaabu shimaal fii samuumin wa xamiim wa dilli min yaxmuum laa baaridin walaa kariim innahum kaanuu qabla dalika mutrafiin. ilaa iyo aayaadka ku sii xiga shajaratu zaquum iyo famaali'uuna minha albutuuna fashaaribuuna calayhi min alxamiimi shurba alhiim. in ilaahay tilmaamayo dabayl kulul oo masaarta jidhka gasha, biyo kulul, meelaan qabow jirin, dhir hunguriga ku dilaacinaysa, haraad aad u baktinayso, biyaha kulul haddana aad cabbayso, sida geelu uga dherga baa la yidhi baad uga dhergaysaa adoo og inay kulul yihiin oo ay markuu cabba bay yidhaahdaan fain yastakiisuu yugaasuu bimaa'in kalmuhli yashwi lwujuuh. biyo marka wejigaaga aad saa ku tidhaahdo diirku kaa dhacayo, haddana baahida ku haysa aada isku qasbaysa inaad cabto. hada nuzulhum yowma ddiin baa ilaah yidhi. waxaa cadaabka loo balballaadhiyey laynoogu sheegay. qoloftiina baa la yidhi kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan gayraha liyaduuqu lacdaab. neerfuhu inaanu marna kaa dhimanin dareenkan sare, mar kastoo uu dabku la tagaba markiiba waa lagu cusboonaysiinayaa liyaduuqu lcadaab baa ilaah yidhi, siday naarta xoog ugu dhadhamiyaan. idan rusushu waxay u yimaadeen inay inoo digaan oo naartaa ballaadhanna inooga digaan ee xun ee dhibta badan iyo jannada iyo nicmadana inay inagu dhiirigeliyaan. waxay kaloo rusushu u yimaadeen litaskiyati nufuus wa islaaxiha, yuzakiihim, inay ina tahiraan oo dhaqan xumo oo dhan, akhlaaq xumo oo dhan
وحلالية وحي إنسانية دهوس لغوردن ويا إنسانك هدو لطهير وايو وكا عرور تعون هي حولها فول هي وحول بصمينية إنهم إلا كالأنعام بل هم ضلوا السبيل أي نغنية لكن إن لا تطهيرية وحيو بهانتي تدريبات تربى ظله توابر تربى ظله تربيين تربى ظله ولذلك الرسول شو حيو يمادين دتك أنت مدمدوية ذاك الصارات إن النور كوصارات إن قلوب بني آدم كإفيان فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وحوي مادين ظلمات الجهل يودن إنك حيان يا إلهي غير كيس العابد أيه وتزكية النفس نصمية شن وحي أنبياء دوي ما دام الرسول وحى الله صدره أفكارته هي نقمده هي عقائد منحرف وعسن قوم هيستو إني توسيان أمدي هورا إلهي قرآن كوحولي كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين دتكم مركي هورا أمة قروها أمة واحدة على التوحيد وها نبي الله آدم بالغ تفير مي نبي بعد علي عفور أنبياء بي هاي وناقيش كو نغمي إلا انحرافات كو يمي انحرافات كايمانية كو عقيدة أخلاق رقم تجارة رقالة سياسة انتو با انحرافيات سود الريبة هاي مركز تو وعشرة ستي ما دبا رسول بلا سود ري دك قعنت قبطه او كسارة انحراف راس تا معنى هيدو حويان مشكلة كستو الدنيا لا إلهي الرسول بو صدري حل وسمايا قرآن كان إلهي وكغور رب المركز الرسول ويبوحي وكحل لي هي مشاكل كاسيسي دي اللي حل لي مشكلات أخلاقية نبي لوط ولدي الله صدري دي أخص الناس ده اللي تبعي هاي رسول بالله صدري كوي سنة بدأ عابد هي عقيدته كإنحرافت الرسول بالله صدري كوي تجارة الرجميرة كين دتك بابايا انتي كلنا بختدي نبي شعيب الله صدري مكيال هي ميزان كور رمية إيوه إنا وحل خيامين تجارة دي اللي هجاتيو عد ولو وعطيبة رسول بالله صادري إذن رسول شو وحي أتبي مشكلات كإنسان كإنه يحل شو نبكى ستوينا هيستوى وبهنين مالك لك الرهد إنه إلهي كتاب يسوع يا الله النبي بأنا الله صادري مشكلة ده سحل لي رسول شو وحي كلاو تمادا إن يدتك حجتك وأكتو وآخره إن أفنع عذر دار هلم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وحلو صدر يبال إلى آخره إن أفنع حجة هلم مركي الرسول كي مكذب ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا هذا مركي هره هلاك لهين با إلهي waxay oran lahaayeen ilaahu cid noo digta noomaad soo dirin oo fanatabica aayatika min qabli an nadilla wa nakhza ilaahina subhanahu wa ta'ala inuu bini aadamka cudurdaarkiisa oo dhan baabi'iyo ولذلك النبي محمد إلهي لي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الحال كدتك كورن با ليدي marka ummad walba marxaati loo keeno ku marxaati fura nabi maxamed alayhi salatu wasalaam adigana aan ku soo saarno ummadan si aad ugu marxaati furto maalintaas baa ilaahay leeyahay wuxuu jecel yahay kii gaaloobay ee rususha caasiyay in dhulka la simaa buu jecel yahay ilaahu yaa ciida igu dara yaa laytani kuntu turaban buu leeyahay law tusawwa bihim al-ard wala yaktumuna allaha haditha balay ورنا مقارن كرام أو وحكسوا السمايين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء إذن إن إلهي مرخاتي أدونك آخرين أفنع عذر ذلك ولذلك النبي وحو كور ما الرسول دوني التمي
وأنا عيد الراعي أما قف قول الراعي أما سوع ما عرض وقبض ردي مركب كوي لو جرو أيوة حرية وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحق لأصحاب السعير اعتراف وقت أسوح المطر اعتراف هو احتريا أنبياء حجة إلى يوكتو أي الله صادر ذكر وحب الله رندورا أولم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعوا الكافرين إلا في ضلال مركب ملائكة النار تيدادان إلهي نو بريء ونو ودي إن الله نحرسته ملائكة يقولون أنت ومين الرسول يديني من أنت تريد تشوفتين ما يوي ما دم بيدادان فادعوا وما دعوا الكافرين إلا في ضلال بابك الأولى هذا إنه بريء أنه إلهي وحبي يدين ويدين مينين بريء ديننا من الله أقبل يماها بريء إنه إذن رسول شو حيوت ما داين يجي نقول وقته وحيوت ما دا إلهي الرسالة دي سين عديسة وحيوت ما دا ضدك إلهي إنا إسبرته وعباداتك يوحي الله معنا يوردن إنا الشرح ده وبني آدمك سيدو إلهي وحد من هاي يوردن إنا وعديسة وحلو صادر للتبشير والإمداد إنا الدجان إنا ينو بشاريان لبض بابا الله صادر وحلو صادر حجة إنا ينو وقام وأنا آخر حجة لهذه waxaa loo soo diraa intii markaa ilaahay raacdayna inay maamulaan oo ku maamulaan ilaahay axkaamtiisa intaas dadkoo dhan bay ka dhaxaysay inta ilaahay raacday markaasi waxaa loo soo diray inay maxay ilaahay kitaabkiisa ku xukumaan oo baraan sida diinta la isugu maamulo faxkum baynahum bima anzala allah inna anzalna ilayka alkitaba bilxaq litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah dadka ku xukun baa ilaahay yidhi wixii ilaahay soo dejiyey waxaanu kitaabka kuugu soo dejinnay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala kitaabka xaqaanu kugu soo dejinnay litaxkuma bayna annaas dadka si aada ugu xukuntid baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wala ilaahay wuxuu tilmaamaya kaana annaasu ummatan waaxida fabacata allahu nabiyiina mubashiriina wamundirين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومدو مد بي هان جرتي markii dambe inxiraaftay gaalimiyo qurun qaraar bay ku dhacday ilaahay rasuul buu soo diray nebiyo iyo rasuul iyo kutub baa loo soo diray looguna digo looguna bushaareeyo kitaabka xaqa ahina in lagu kala saaro dadka wax kasta oo muran dhexdooda gala nabiyullaahi daawud baa ilaahay wuxuu ku lahaa يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق نبي داود وحا مكاردقنا خليفة مدح بان ضدك كاردقنا لو كاين مدح كنقطه ضدك حقك حكم بالليل نبينا عليه الصلاة والسلام حين وشهد كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء هر بنو إسرائيل نبي يدا حكم جري والنبي لي نبي يدا حكام جري كلما هلك النبي خلفه النبي مركا النبي اللي انتبه إلى هاي النبي كلو سودري جري لكن ومضي النسيل ياليا وإنه لا نبي بعد ابن نبي عليه الصلاة والسلام أنا قد بدأ النبي دم الله صدري معي حال مركا الله تلماميا ومضيه روي انحراف جرين وكتابك كلو جري كتابه دودي انحراف جرين إلهي إنك وحينه بلن قاضي لو شيء كو كتابه إنه محفوظ هذا إلى قيامه إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون إنه محفوظ نغضه كتابك وحكو حيران ودبنا إنه محفوظ نغضه سيع علماء الشيء سنة النبي إنه محفوظ نغضه بل علماء وحي هذا ديمه هرود من أفكي كقر رايان وإندراسة وبابا إلهي كتاب كان لغة كقرية وحاو قاضي إنه نغضه إلى قيامه مثل فهم كرم ولذلك اللغة عربية واللغة قرى يكون يافر بقوله السندوت جرتاء القرآن السيدي أو قرن يقول له فهميه لغات ككلمة جيران ويتطوران ويسبدلان كل ما بدع سبحان الله نبي الله عيسى لغة يكون هدي جري ويسبد الشيء أفك كتاب كيسوق قراء ولا جوري ولا ترجمة
كي لو ترجمي ولا جوري هدنا ولا سي ترجمي كي لقى سي ترجمة لقى جوري ولي الترجمة دي بكون شراء مركا ترجمة كل بوصية انحرافين ترجمة دون هو أن نروح فهمه كتاب كده ما القرآن كذا ولا هذا معناه ساقو قرية ووحي أنا وان كفهمه لكن القرآن ما قف قال هذا آخري وحلا جاب لها وحنا مو كفهمه وحكي عنه كفهمه لها بس كلو فهم كرلا ترجمة دو أصل ما مرنا بقى اللغات كنا اسمها بالليكا أفكوا اسمها الليكا ويو إريك استول اللغة كم دي دلال تاريخي يقولي بيرة ده مركز اسمها الليكا اللغة دي وكو قرآن إلهي وينو حفظه وما أنت قبل يجي امرأة القيس هو النبي جهرتي كوين ولا جاهلية دي قبل يجي سي أي الله آخرها يا معلقات كي بيوددوا مساجد كفصلها معلقات السبع وقبل يدي اللي تري النبي محمد هرتي كعبة السناتشري تمعنى دوام حي عربي والسيدي وها وقتي والنبي محمد سعود دقيقة الله هيا اسمه بدليل مركي دمنا إلهي رب وصار قواعد سيا نحوي سيا صرف سيا بلاغة سيا وحي السبب قراسي أنا يسمى بدليل يعني واحد هذا لغته نحوه هو وحى اللغة إلالية خطأ يقفك كإلالية هداني اللغة النحو لها يمي بعضها وفي صومالي هو هذا كسي صعدا عيدو مقرين سادرات سي علمية عيدو مبرطة مركا مالي والبطاطور عصب قادر يقاب عصب الله وهذا فري الدوين اللي يسفتروا ونابي ولودي سيدين هو وأيو كنت سنوكو هور قبيدي اللي تريد كي تفهم ساويات إلهي مركا وحي ينوح حجي لغة وكو قرانا ما دام اللي يلي نبي الدنبي أنا جاي من مايا كوي هور النبي ده معمولي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قداشي نبي الدنبي من مايا بالليل لكن الرسالة دي النبي قال إلالية قرآن كي سنة دي أفكي وكو قرا وحي يordن وسيدو دي مركز اللو فاهمي كانوا وحكى له انت عدين أنبياء اسمه إلهاية نقفك إلهي كإلاليو ورجفين ومدى النبي محمدنا كأمة أي اسم اللوسي ومدى يدوى معصوم بالنبي يقول وخطأ اسمه هذا الرعي مركا اسمه دي نوعي ستار إذن إلى قيام الساعة الدين تنوي شوغسا وحمركا تاغني وحو يهيون غير بنو إسرائيل ويدما ذي النبي دودي بالليل أنا قدام بيي أنا قد دبضينا وسيكونوا من بعد خلفاء بايمن دون بودي مدح بايمن دون ترى بدن وسيدي وكله الريين مدح ذوقاتا أيا الليلي ومر وكهرب بيعدي سفولية وحكى له الله تلمام وهدي دين تخلافان هكا أقبلنا يعني دول ككلام السيستم ككلام نقولوا يا ما دام قانون هو بدله برلمان كستوي ما دام حبيك بدله كنيسة ما بدله وكان مدح كستوتي ما دا كانوا بكو حكومية كانوا دو خلافان ضدكم ربا وذاكيا ولذلك في الشريعة الإسلامية بشركوا أحكام تمدتشيو ولذلك دول كي إسلامية هاي ونم بشر ما هيني حال لولي هاي شافع عين كايري يكبع عين كايري ده العلماء ده دتك وهيسن قانون خام الشريعة وحيتي يجا شر دتك وشرحي ما جرى قانون كي عثمانيين تا ما قانون كي محل هذا أمويين تي قانون كي كواحد هذا الإسلام كتاريخي سماله قانون كوها مذاهب تالا يقارئ فقه كتاب كقربة يهيد وحلا يسكع حكومية أنبياء دي غير بنو إسرائيل مركي غير بنو إسرائيل إلهي التوراة كورمي وحولي يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وها حكو حكومي نبي دي غير بنو إسرائيل أياكو حكومي دتكو دي إنك لو حلا ينوسو دي كتاب كرين المسكو حكومه أو النقضاء إلى قيام الساعة وحي ودن بيا للراعي marka inuu leenahay aطacna allaha wa aطacna الرasuul been baynu ka sheegaynaa haddaynu badhna ka qaadano badhna ka diidno caalam alislaamina dhigta taagani waxay tahay iyagoo muslimiina oo kitaabkooda haysta haba inxiraafaad haba jirjiraane shareeco kale aanay oolin ayuu isticmaar u yimid dabeetana shareeco kale u dhigay isticmaarka hortii boqol iyo
أفرت السنة ما يقول أيو استعمارك عالم الإسلامي marka laga reebo meelihii uu ku soo yaro horreeyay meelaha qaarkood 1800 dhowr iyo 20 ama dhowr iyo 30 meelaha soo Algeria kala yimi kuwa inuu deegaaba ku tala galay laakiin intan badan ee kale ee 1984 iyo wixii ka dambeeyay gaarkeedii uu yimi waxa waqtiga ka horreeyay ummadda muslimkii meelay joogtaba sharci kale ma aqoon oo aan ahayn ka Ilaahay subhanahu wa ta'ala in xiraafaad yar yar waa dhacayay لكن إن سجل الله أبو متك الله ديجا ما لا أقولني قال كأكيري إنه كتاب كالله أبو أو وحكى له وقوله أو كود هذا سبب بن آدم كيسمع ملا كدبنا وحرون يبال يدي وحبلا ما حروبين وحيسيون بالله سيوضا نك يقول ماشي في الريال اللي بدلوا نك على فريستي لكن وحيسي يسدي سي هو ده بالله وضع waxaan ku soo koobayaa un darsigu uma bambixin baabka ka warramay rususha waxa loo soo diray oo shaqadii loo soo diray kamid ahayd inay dadka ku maamulaan wixii Ilaahay ku xukumay atba'u rusul marka maxaa laga rabaa cidii Ilaahay rasuulkiisa la taacay inay shaqadii rasuulka qabtaan ummadda muslimiinta marka xilka saaray waa balaaq dunidoo dhan inay diinta gaarsiiyaan إلهي إن يدك وشرحان والدعوة سي الله يا بن آدم كسكو حدان يا عبادات كسي شرائع دي سي وحسين وشرحان وحي دي ده حجدين يكو أوغان وحي أقبلين يؤبو الشاريان وحي دي دين يؤدقان تبشير يتنذير السماء إنذار السمايان إيوه أنت راع ده الرميسي دي ده إن دبو الرميسي شرتو إن يسكو حكومان ومركا كل نغمان inay isku xukumaan oo ku dhaqmaan waa wixii rususha loo soo diray waka hadii aynu raacino iyo hadii la leeyahay bad baynu raacinaayo bad kalena gaalkaynu raacin ilaahay se waxa ka baraya inaynan gaalka raacin ee aynu raacno cidii ilaahay inoo soo diray aynu rumaynay oo maanta taariikhyahanada dunida oo dhan waxay isku rumaysay in qofka ugu badan ee dunida guuleystay la garanayo waa nabi maxamed bay leeyihiin waana gaalo iyagoo gaala bay leeyihiin calayhi salaatu wasalaam وقفك كده مامل هي ميليتري هي الرسالة هي مبادئ وده أنت بكون جولستي ميلان وحبك كتير من الدولات كنيسة هلا يوم تكبرنا إلى ذا ما يهرت وارث ما ينهد وبين مسكر حكومة الدولة وروح اسمه كده نبي محمد بلا ويبو قدس يضع بستدين تي ديمقراطية دين تقول بستهد ودين تما تماضى حبك ما كده ميلان وحبك كتير ميل بين آدم كله اللي ماشي ويقول لي ده تي أي إلهي الصادر أو قدس oo ku xukumay oo dadka ka dhigay oo dunida iskaga celiyay hadii loo dhan lahaa inagu waa liidana ma dhaqaalaha xuna ma ka baax meel kale dhaqaale liidato ka xuro ka liidata ayaa dad lagaga dhigay waxaanay gaadhay inay dunida oo dhan ka taliso waxa qodaynu u baahanay marka waxa weeyaan laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana ilaahi rasuulkiisa waxaynu ku sugan baa la yiri ku dayasho fiican yuu ku sugayay لمن كان يرجو الله واليوم الآخر عدة كنت يتوى عدة نوم إدي إلهي نرجك قبطه ما لنت آخرنا إني بدباد رجك قبطه أيوم بوضد القاطة من الشرو وحلا يراهضه برد بينو كقد يرينا برد نعيد كلاينو كقد يرينا وحلا يراهضه أنا الدين تكون مجرته برد بينو إلهي كقد يرينا إنه الرسول كيس bad kalena qol kale inuu kaga dayanayna reer baro Israa'iil baa ugu badan oo quraanku uu ka warrama sababta looga warramayna waxa weeyaan intoodii fiicnayd Ilaahay uu inoo sheegay intoodii xumaydna bulshadaasi inta meelooda ay ku qaldantaa Ilaahay inoo tiriyay iyo wixii uu nimca siiyayba waxa la tiriyay waxa kamid ah in afar shay la yiri sameeya oo ay saddexna ka tageen midna qaateen صدحنا وقت منا وقاته دبتنا إلهي وحكيري أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كتاب كبرنا مياه ربين إنسان برنا وامحي كتجيسان ميكا قد سنتيتنا آيات دا حلقنا وأقبلنا آيات دا مهرك كور رمسية قول كنا وأقبلنا آيات دا حكم كشيء يسوي ضربها هذه نودينا تين وصلة
waayo waynu la yaabaynaa ninkii yidhahda gabadh baan iska kaxaystay anigoo aan guursanin kaasi diintu ka baxay baad leedahay waayo qur-aankii buu khilaafay gabadh baa la guursadaa iyadoo aan lama helinin halkan kale ka baxayna maxaad odhan doontaa mise labada aayadood qur-aana baa kala fiican calaa kullin dariiqii nebiyadu waa ka ah isagoo kooban waa mid waliba sharax gaara u baahan isagoo kooban waa intaa aynu isku dayno inaynu ku dayanno ilaahay jidkiisaasi ilaahay baa inoo ballan qaaday adduunkan inaynu guuraysanayno aakhirana guuraysanayno sala allahu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbil caalamiin